xanuunada ugu badan ee ku dhaca bulshada Soomaaliyeed waxaa ka mid ah xanuunka loo yaqaano gaaska ama gastrikada, balse si fudud ayaa loo daweyn karaa loogana hortagi karaa. Muuqaalkan ayaa kugu sharxaya waxa uu yahay gastrikada, waxyaabaha sababo iyo sida loo daweeyo. Balse intuusan muuqaalka bilaabanin, waxaan kaa codsanayaa muuqaalka like noo saarto si uu saaxiibo badan u gaaro. Fadlan waxaan kaa codsanayaa muuqaalka hubisid inaad like noo saartid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواده dhamaan saaxiibayaal. Si aad muuqaalka hordhicisa ka soo aragtayba, muuqaalkan waxaan rabaa inaan ku sharxo gaas calooleedka ama wax loo yaqaano gastritis. Marka hore, waa maxay wax loo yaqaano gastriga ama waa maxay gaaska? Gaaska inta badan waa xanuun ku dhaca caloosha, gaar ahaan wuxuu ku dhacaa xuubka dahaara caloosha. Marka waa in uu caabuq ku yimaado xuubka dahaara caloosha. caabuqaas ayaa loo yaqaanaa gastritis. Inta badan caabuqa ku dhaca caloosha waxaa loo qaybiyaa laba qaybood. Mid si degdeg ah u dhaco oo loo yaqaano acute gastritis, iyo mid soo habsaamo oo waqti badan ku qaadato qofka inuu ku dhaco oo loo yaqaano chronic gastritis. Inta badan gaaska caloosha ku dhaco labadaas qaybood ayuu u qaybsamaa. Si aad ugu jeedid sawirka shaashada kaaga muuqdo, sawirkan waa caloosha bini'aadamka oo gudaha laga sawiray. sawirka bidix waa caloosha bini'aadamka oo caafimaad qabta. sawirka dhinaca midigna waa caloosha bini'aadamka oo qabta cudurka gaaska ama gastrikada. Haddaad si fiican ugu fiirsatid sawirka dhinaca bidix, waxaad arkaysaa wax kuskuusan oo sida shukumaanka oo kale u samaysan. waxyaabahaasi waa waxyaabo dabiici ah oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala calooshiina u sameeyay oo ka difaacdo waxyaabaha gastrika ama waxyaabaha acidka ah iyo cuntooyinka inay dhaawacaan caloosha. Marka waa la kab difaacdo caloosha. Haddaad u fiirsatid sawirka dhinaca bidix, waxyaabahaas kuskuusan ama waxyaabahaas shukumaanka oo kale u samaysan calooshan dhinaca bidix ma lahan. oo waxaa baabi'iyay acidii caloosha soo deynaysay, ama waxaa ku dhacay caabuqan aan sheegaynay oo loo yaqaano gastritis. haddaba lakabkan aan sheegaynay oo sida shukumaanka oo kale u samaysan, haddii uu jirka ama caloosha uu ka qaadmo, waxaa soo muuqanaya xididada dhiiga. qofkaasina wuxuu isku arkayaa dhiig bax, oo waxa isku arkaya inuu dhiig saxaroodo ama inuu dhiig ma tago. waxaan filayaa inaan kala fahanay farqiga u dhaxeeyo caloosha caafimaadka qabta iyo caloosha qabta cudurka gastrikada ama wax loo yaqaano gastritiska. farqiga u dhaxeeyana saan sheegaybo ama saan sawirka ka arkaysaybo waa lakabka dahaara caloosha ayaa midna caabuq u leeyahay midna uu caafimaad qaba. inta badan bulshadeena waxay aaminsan tahay in caabuqan uu keeno cunto la'aanta ama gaajada. waa sax, caabuqan inta badan way keeni kartaa, balse waxyaabo badan ayaa sababi karo. waxaan u gudbi doonaa qaybta xigta oo ah maxaa sababo ama maxaa keena wax loo yaqaano gaaska. waxyaabaha keeni kara ama sababi karo gaas calooleedka waxaa ka mid ah number 1 jeermiska, gaar ahaan jeermiska bakteeriyada ah. jeermiska inta badan keeno wax loo yaqaano gaas calooleedka waa bakteeriyada loo yaqaano H pylori. saa shaashada ugu jeedidbo H pylori qaab noocan ay u samaysan tahay. sidoo kale waxyaabaha keeni karo wax loo yaqaano gaas calooleedka waxaa ka mid ah dawooyinka qaar, gaar ahaan dawooyinka loo yaqaano aspirin, ibuprofen iyo wixii la mid ah. si guud waxaa keeni kara dawooyinka loo yaqaano anti-inflammatory drugs. inta badan bulshadeena Soomaalida ah aad ayaa u jecelnahay dawooyinka, oo waxaa laga yaabaa qof naga mid ah hadduu xanuunsado inuu si degdeg ah u tago farmasiga u dhow, uu dhaho waxaa isiisaa dawada malaarida, dawada gaaska iyo wixii la mid ah. balse qaabkaas waa qaab qaldan oo waxaa loogu talagalay sida saxda ah qofka inuu tago dhakhtar ama uu kala tashado dhakhtar ku takhasusay cuduradaasi dawooyinka uu qaadanayo. sidoo kale waxyaabaha kale ee keeni karo gastrikada waxaa ka mid ah number 3 cuntooyinka qaar, gaar ahaan cuntooyinka ku badan tahay saliidda, cuntooyinka la shiilay ama cuntooyinka shiilan, sidoo kale maraq digaaga, suugada iyo wixii la mid ah. sidoo kale cabitaano qaar ayaa keeni karo wax loo yaqaano gastrikada, gaar ahaan cabitaanada ay ku badan tahay asida sida alcoholka, 7-up-ka iyo wixii la mid ah. sidoo kale waxyaabaha kale ee keeni karo gastrikada waxaa ka mid ah number 5 wax loo yaqaano stresska oo ah walwalka iyo fikirka badan. inta badan jirkeena markuu ku jiro walwal iyo fikir badan waxaa sare u kacayo dheecaanada jirkeena,
mar walba ay sare u kacaan dheecaanada jirkeenana waxaa sare u kacayo in la soo deeyo dheecaan badan oo loo yaqaano ama dheecaanada dheefshiidka cuntada ka qayb qaato oo loo yaqaano hydrochloric acid. marka dheecaankaas badan haddii la soo daayo qofku wuxuu si fudud ku qaadayaa gastrikada. waxaa jira nooc ka mid ah gastrikada oo inta badan stresska uu keeno. noocan waxaa loo yaqaanaa stress induced gastritis, waana nooc ka mid ah gastrikada ku dhacda caloosha. sidoo kale waxyaabaha kale ee keeni karo gastrikada ku dhacda caloosha waxaa ka mid ah number 6 xanuuno kale. inta badan xanuunada kale ee keeni kara gastrikada caloosha waxaa ka mid ah xanuunada ku dhacda kiliyaha ama wax loo yaqaano kidney diseases. marka xanuunada markii la daweynayo waxaa muhiim ah qofka in loo raaciyo dawooyinka lagu daweeyo gastrikada, sababtoo ah waxaa jiro dawooyin qaar oo xanuunkaas lagu daweynayo isla markaana sare u qaadayo gastrikada. marka waa in qofka loo raaciyo dawooyinkan hoos u dhigayo gastrikada. waxaan u gudbi doonaa qaybta xigta oo ah astaamaha lagu ogaan karo xanuunka gaaska ama wax loo yaqaano gastritis. astaamaha lagu ogaan karo waxaa ugu horeeya wax loo yaqaano bog xanuun. qofka markaa weydiisid astaamaha uu leeyahay, astaanta ugu horeyso ee ugu caansan ee qofku kuu sheegayo waa inuu leeyahay bog xanuun. sidoo kale qofku waxaa ku arki kartaa number 2 laabjeex. laabjeexa inta badan qofku markaa weydiisid wuxuu ku leeyahay cuntada ay ugu soo rogmanayso iyo wixii la mid ah, marka laabjeex ayuu lahaa karaa. sidoo kale astaamaha lagu ogaan karo wax loo yaqaano gastritis waxaa ka mid ah number 3 dibiro. qofka inuu dareemo in hawo ay ku dhageyso oo kale. sidoo kale waxaa ku ogaan kartaa wax loo yaqaano ama qofku wuxuu yeelan karaa wadna garaac. inta badan asaanta qofka markuu isku arko wuxuu moodayaa in wadna xanuun uu haayo ama cudurrada wadnaha ku dhaco inay qofka soo wajaheen, balse waa astaan ka mid ah astaamaha lagu ogaan karo gastritiska. sidoo kale ugu dambeyn waa astaanta ugu caansan ee lagu ogaan karo wax loo yaqaano gastritiska waxaa ka mid ah kor hur. qofka inuu dareemo inuu jirkiisa hur uu ka dareemo. way jiri karaan koley xanuuno kale oo astaanta lahaan karto, balse waxay ka mid tahay astaamaha ugu caansan lagu ogaan karo wax loo yaqaano gastritiska ama gaas calooleedka. waxaan sameyn doonaa muuqaal kale oo aan ku sharxayo cuntooyinka ugu fiican qofka leh gastrikada. sidoo kale waxaan ku sharxi doonaa muuqaalkaas cuntooyinka iyo dawooyinka ugu fiican ee lagu daweey karo gastrikada. anigoo kaaga mahadcelinayo daawashada muuqaalkan, waxaan rajeynayaa muuqaalkan wax uun ka faa'iiday. inta laga gaarayo muuqaalka xiga ee idinki waxaan ku rajeynayaa khayr iyo caafimaad badan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.